magacaygu waa Fartuun Saqaawe. Waxaan joogaa dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Umeå. Waxaan ka mid ahay dhalinyartii lahayd fikirkii iyo howlgelintii xarunta IFIE ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan doonayaa in aan faahfaahin buuxda ka bixiyo waxa uu yahay IFIE, goorta la aasaasay iyo cidda aasaastay, sida uu u howlgalay iyo ujeedka laga leeyahay. IFIE waa xarun ka shaqeysa horumarinta akhriska iyo qoraalka, dhaqanka iyo hiddaha, raadraaca iyo ururinta taariikhda. Sanadii 2013 ayuu aasaasmay IFIE. dhalinyar waddanka gudihiisa ku nool waxna ku barta ayaa ku mideeyay fikirkoodii, isla markaana bilaabay inay dhaqan geliyaan. Ujeedka iyo himilada laga leeyahay IFIE ayaa ah kobcinta iyo kor u qaadista maskaxda bulshada, iyo in laga hortago sinjiguurka ummadeed. dhanka kale, maktabaddu maaha shaqada kaliya ee uu IFIE qabto, balse waa qayb ka mid ah howlihii u degsanaa ee aan ku guuleysanay hirgelinteeda. Shaqooyinkii ugu horreeyay aan qabanay ayaa ahaa in aan raadinay cid kasta oo aan ku tuhmayno in ay taariikh nool u tahay afka, dhaqanka, suugaanta iyo sooyaalka Soomaaliyeed. Waxaan qabanay shir weyne ay ka soo qayb galeen garaadmaal badan. Halkaas waxaan ku xoojinay qodobo dhowr ah oo ka mid ahaa higsiyadeennii. Shirkaasi waxa uu inagu dhiirigeliyey in aan bilowno baraarujin ku wajahan goobaha waxbarashada si loo adkeeyo barista afka iyo taariikhda. Waxaan kale oo aan qabanay barnaamij aan ugu magac darnay Howl Qaran, kaasoo aan uga gol lahayn in aan wax ku barno dadka aanan garanaynin akhriska iyo qoraalka far Soomaaliga, dadkaas oo qorashkoodu u saamixin inay tagaan goobaha waxbarashada. Ololahaasi waxaan ku soo saarnay 200 qofood oo garanaya akhriska iyo qoraalkii far Soomaaliga. dabadeed dadaal dheer waxaan u galnay soo celinta dhaqanka iyo hiddaha. daayar badan oo ka kala yimid jaamacadaha iyo iskuulada waddanka ayaan u bilownay barista dhaqanka iyo hiddaha qaybihiisa kala duwan. Arrinkaana waxay naga caawinayay xeeldheerayaal dhaqan oo waddanka inagula sugnaa. Waxaan soo dadaalnay isgarabsigeennii uu Ilaahay nagu garab galay. Waxa uu ina gaarsiiyey inaan ka gudubno guryaheennii iyo goobihii kale ee aan ku shiri jirnay, isla markaana samaysano hoy uu IFIE leeyahay. Ma hadda Ilaah taana waan ku guuleysanay. wixii aan kufno oo kacnaaba waxaan istusinay waddanka ay ka jirto baahi weyn oo ay bulshadu u qabto helista maktabad, gaar ahaan dhalinta dalka wax ku barta si ay u helaan buugaag cilmiyo kala duwan ka hadlaya iyo manaafacaad maskaxeed. taasina waan ku guuleysanay. kadib waxaan isla garanay inaan qabanno doodo cilmiyeysan, una qabanno dhalinyar leh hal abuur kala gedisan iyo shakhsiyaad aan u aragno in aan kala hari karno soo jireen. IFIE waa xarun gooni u taagan, kuna taagan dhalinyar Soomaaliyeed oo maskaxdoodii isu keentay. dadaalkeennii iyo hal adeegeennii uu Eebba nagu dayacay ayuu ku dhisan yahay IFIE. taana macnaheedu waxa ay tahay inagoo dhalintii ayaa leh IFIE, maal iyo maskaxna gashtay. waad mahadsantihiin.